بسم الله جرهي جو جلببع وما مغل جلببع وما أرك ولقى يا الله مسوق يسيد تنجر لولكيسي غوارج كسو دوينيا كاسو هيستمر عوينه دلك يحيلك أقبضنا مركب كيشان اللي باترادو معاونا أنا ما أنت الله سيوضو هيوم متصار فري أنا لسي وجال لها برقي درساكي على ويلش يدي لغو سيوضو أيكو قعدون سن مركو اللي لدقيسو أغليادان هدي إلهي كورنو يهي إلى دقيسو waxaa loo shirbaay waa maxay كان والله شغال مسلم وهاي دين الإسلام كو قد ميناي ولو هاي آل شباب أخيارتي سرانيو بكتاتي كو قدرتا تلدارا هيداي ولو هاي آل شباب ويكرم متكلا يقدريني ولو هاي آل شباب waa gartay idinna waa adeegsateen dad badan ayaa weydiiyey oo inaan u fasiro oo garan waayey marka hore waxa uu ahaa nabadoon beeleed oo ulow ahayey cidduna waa ugu dartay mid kale ugu dartay tafsiirka saxda kaas waay waa nabadoon beeleed shabaabna xilow ka hayey haddana beeshiyaa sii dooratay uyuna mid kale ugu dareen ulow hayay al-shabaab intaas waa nuxurka yaabkiis ah oo ah in markabkii 25aad maantay oo macaawinaa loo diraayo haddii ilaahay ku roon yahay dhulkan haddii ilaahay ku roon Sheekh Maxamed Qaraawiis ay degto ayakiina aysaa u shirbayaan waxaan rabaa marka dhalinyarada habar gidir iyo in xawaadla ayaa loo soo diray ceel cali axmed waxaa ka cararay wabiir oo degaan ahaan ka soo jeeday waxaa ka cararay shacabkii deganaa hal qof kuma noola markay u soo dhawaadeen anteenadii la damiyey miina lagu wareejiyey haddii ilaahay ku ruunay gabalkii waa dhacay gees kasta waa laga joogaa waxaan rabaa inaan idhaahdo bini aadan sidii macaawanadii loo dhiibayo muqdishona ku ilhaanaysan halkii qofu hadlayay oo muqdisho joogana laga xiray kuwa ka soo horan ay dhimanayaan horta waxa ku dhacay habar gidir qayb ka mid ah waaye inay ka mid noqoto jawaanada raashinka ee macaawanada hay la dhiibo kale waxaan rabaa qofka inuu dhinto raba aniga ma hortaagni go ahayd hore u soco balse waxaan rabaa inaan ku dhaho yaa eedan qaadaya liibaan axmed liibaan shuluq walaalkeeyow eedan inaa qaadaysid ogow axmed cabdikaariyo qoorqoor eedan inaa qaadaysid ogow xildhibaanada ka aamusan ee xilligan jooga eedan inaa qaadaysid ogaada dadka inay yeelan doonaan maalin maalmaha ka mid a adinkoo da'a oo liita ama adinkoo idinka taalo inay ku marag furi doonaan raggii meesha ku dhintay sida macaawanada loo dhiibay in lagu xisaabtami doono oo feerana ay ka xisaaban yihiin farana ay ka tirsan yihiin waxaan rabaa inaan dhaho walaalka habar gidirtahow kuwa badan oo la soo hadlaya kuwa kaleba walaalayaal naftiina ha u iibsanina si ka hooseysa sida gabadha tumata ay jirkeeda qayb ka mid u iibsato gabadha tumata jirkeeda qayb kamid iibsata waan ku noolaataa cunay ka dhigataa adiga naftaada oo dhan maxaad siisatay dhul ninkii lahaa ka cararay xasan wabiir oo macaawino u soo dhiibay cabdu wabiirna oo ka cararay inaad haddii ilaahay ku roon yahay ku habsaantid qof aad ugu tegay aan la arag maqaayad ka furan aan la arag biyo aan lagaa siinin hadduu rabo somaysan waxaan rabaa inaan dhaho dib u noqo mar labaad ila dhegeyso wuxuu yidhi ninkii odagaa jirahay joogow jilbabacaw ma arag jirahay joogow ma arag 70 jir mar maxaa tiri ku soo celi كان والله شغال مسلم وهاي دين الإسلام كو قد ميناي ولو هاي آل شباب أخيارتي سرانيو بكتاتي كو قدرتا تلدارا هيداي ولو هاي
warriya waxaan shirab meeshii lagu arka ha lagu uleeyo shirab waa murtad shirab meeshii lagu arka ha lagu uleeyo shirab ha la garaaco shirab wabiir xasan wabiir cabdi wabiir ilmo wabiir walaalayaal warkii ugu dambeeyey wuxuu yahay dhalinyarada habargidir iyo xawaadle ee ceel cali axmed loo soo diray qof dhimanaya anuu ma celi karo balse waxaan rabaa inaan dhaho dhiig baxaya dhafoorna kuma jiro rag dareere inuu dul leeyahay ma isaga daysay inuu mawdku daba yaal idinna ii daaya maxaa ku dhimanaysaa cali aadan muumin muxuu ku xiran yahay waxaan kusoo gabagabaynayaa cali aadan muumin waxaa la isku dayayaa cunadiisa in la kontaroolo waxaa la samaynayaa sixir iyo wax lamida waxaa la samaynayaa sumayn waxaa la rabaa noloshu in lagu bahdilo waxaan rabaa inaan dhaho xildhibaanada maanta jooga inaad xildhibaan lahaydna aqoonso jamaal wuxuu ku leeyahay ulaodhibaya al-shabaab uyukana midka aley ugu daareen ilmo wabiir waxaa iga calol xumo badan markabkii 25aad oo macaawinaa iyo wiilashii habargidir oo macaawinaa oo cid iskale aan la arag inay hal gobol ku socdaan hooyooyinka ilmaha habargidir dhala mase macaawinahaad u dhasheen sorry for habargidir waxaan rabaa inaan dhaho walaal lafaha gacayso. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.